qodobada wararka wasaaradda nabadda ee dalkan Itoobiya ayaa soo qaban qaabisay kulan looga hadlayay arrimaha federaalismka. qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in 29 milyan oo qof oo ku nool gobolka saaxil ee Afrika ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. maalin wanaagsan daawadayaal dhamaantiin baa ku soo dhawaada warka galabnimo oo ka daawanaysaan telefishinka qaranka Itoobiya si toos ah waxa warku idin kaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Addis Ababa. Nimcaan Cusmaan ayaa idin waramaya. telefishinka qaranka Itoobiya ayaa waxa uu u kurgalay siyaabaha ay u socdaan goob doorashooyinka sida ay uga socoto qaadashada kaarka cod bixinta qaybo kamid ah magaalada Addis Ababa. ETV ayaa waxa ay ogaatay in inta badan goobahaasi ay yihiin kuwa xidhan. meelaha ay telefishinku baaritaanada ka sameeyay ayaa waxa kamid ah xaafadaha lagu magacaabo Nifas Silk Lafto iyo sidoo kale xaafada Jammo ee magaalada Addis Ababa halkaasi oo u muuqatay in gabi ahaanba ama se inta badan goobaha doorashadu ay ahaayeen kuwa ay albaabadu u laaban yihiin. Alamu Sheetu oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer qaran ee dalkan Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo maalmo dheeriya lagu kordhiyay qaadashada kaarka cod bixinta ay haddana bulshadu u muuqato kuwa dhayal si xoogan u dhinacooda ka muuqdo. wasaaradda nabadda ee dalkan Itoobiya waxa ay soo qaban qaabisay kulan looga hadlayay arrimaha nabadda iyo waliba nidaamka federalismka ee dalkan Itoobiya kaasi oo ay ka qayb qaadanayeen khubaro ku xeel dheer arrimahani. ayaa warbixintan la socodsiinaya. kulankan oo ay soo agaasintay wasaaradda nabadda ee federaalka Itoobiya oo loogu magac daray federalismka iyo dhismaha nabadda Itoobiya ayaa waxa ka soo qayb galeen aqoon-yahano ku xeel dheer arrimaha federalismka. haddaba waxa kulankaasi laga soo jeediyay in ay galdaloolooyin ka jiraan qaabka dastuurka dalka loogu cadeeyay nidaamka federalismka iyo habka loo dhaqangeliyay. agaasimaha qaybta barista dastuurka iyo federalismka ee golaha federationka dalka Dr. Haile Yeshu Taye oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in ay ka jirto galdaloolooyin ballaaran dhinaca fahanka dastuurka iyo federalismka waxaana intaas ku daray in kulankani uu waxtar weyn u yeelan doono sidii sixitaan loogu sameyn lahaa caqabadaha ka jira dhanka dastuurka iyo federalismka. waxaa kaloo intaas ku daray agaasinku in haddii mas-uuliyiinta heer xaafadeed ilaa heer federaal ku sugan kor loogu qaado fahankooda ku aadan nidaamka federalismka xal loo heli karo dhibaatooyinka qaybaha kala duwan ee waqti xaadirkan dalka ka muuqda. geestiisa Dr. Maxamed Dejana oo ah bare ka tirsan kulliyadda sharciga iyo federalismka ee jaamacadda Addis Ababa ayaa dhankiisa sheegay in fahanka nidaamka federalismka oo kor loo qaado ay keenayso in laga hortago isku dhacyo xilliyada kala duwan ka dhaca dalka isla markaasna shacabka si weyn loogu dhex baahiyo buu yidhi aqoonta ku saabsan qaabka awoodda loogu qaybsado nidaamka federalismka iyo sida loogu baahan yahay inuusan dhinacna ku xadgudbin awoodda dhinacyada kale. dhinaca kale Dr. Sion Masfen oo ah wasiir dowlaha wasaaradda nabadda federaalka Itoobiya oo ka hadlay kulankaasi ayaa sidoo kale xusay in kulankani uu waxtar ballaaran u yeelanayo nabadeynta dalka ayna ka soo bixi karaan geshiyo ay adeegsan karaan mas-uuliyiinta siyaasadaha dalka dejiya. waxaa kale oo wasiir dowluhu kulankan ka sheegay in laga hadlay xiriirka ka dhexeeya nidaamka federalismka iyo isticmaalka luqadaha iyo midnimada lagu guuleysan karo iyadoo ay jiraan badnimo iyo kala duwanaansho. wakaaladda dalxiiska ee dalkan Itoobiya waxa ay sheegtay in ay wado dadaallo lagu doonayo sidii loo soo jeedin lahaa dalxiisayaasha dibadda gaar ahaan kuwa waqti xaadirkan ka imanaya qaaradda Yurub. Nasruddin Xasan ayaa mar kale warbixintan la socodsiinaya. dalxiisayaasha Yurub intooda badani waxay Itoobiya u dalxiis yimaadaan bilaha Hamli iyo Naxaase. waxaa la sheegaa in waqtigani uu yahay xilliga ugu habboon ee dalxiisayaasha Yurub qaybaha kala duwan ee adduunka ee u dalxiis tagaan. shirkadda lagu magacaabo Tourism Ethiopia oo hanaanka socdaalka dalxiisayaasha ka hadashay oo qiyaasteeda cabraysa ayaa tilmaantay in meelaha ugu badan ee u dalxiis tagaan dalxiisayaashu ay tahay Ethiopia.
shirkadda oo la hadashay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa waxay sheegtay in dalxiisayaashu xilligan yimaadaan ay u badan yihiin kuwa ka socda dalka Spain. shirkaddu waxa kale oo ay sheegtay in ay samaysay u diyaargarow ballaaran oo dalxiisayaasha lagu soo jiidanayo marka ay yimaadaan kadibna joogitaankooda loogu dheeraynayo. mudane Silashi Girma oo ah maareeyaha shirkadda dalxiiska Itoobiya ayaa tilmaamay in marka COVID-19 awgiis ay tirada dalxiisayaasha 2013 Itoobiya soo galayay ay hoos u dhacday, isla markaasna la wado dadaalo dib loogu soo noolaynayo dib u dhaca uu COVID-19 keenay. mudane Silashi waxa uu intaas ku daray iyada oo la adeegsanayo safaaradaha, qunsuliyadaha iyo waliba khadadka internetka uu socdo hawlgallo ballaaran oo dalxiisayaasha adduunka gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub lagula socodsiinayo goobaha dalxiiska ku habboon ee Itoobiya. iyadoo dhawaan haddaba Itoobiya isku diyaarinayso buuxinta biyo xireenka wareegga labaad ee buuxinta biyo xireenka ee Abay ayaa dabcan waxa soo baxaya warar ay ka imanaya dalka Masar kuwaasi oo ay baahinayaan warbaahinta dalka Masar isla markaana ay ku sheegayaan ama ay kaga hadlayaan arrimaha gudaha ee dalkan Itoobiya. wariyahayaga Cabdilaahi Raabi ayaa warbixintan soo socota ka diyaariyay. waxaa jirta in muddo dheer ay Itoobiya fursad u weyday inay isticmaasho biyaha webiga Abay ama biyaha loo yaqaano Niilka Madow ee carradeeda ka soo maaxa. marka dhinac walba laga eego sida marar badanba la soo sheegay waxa Itoobiya xaq u leedahay isticmaalka kheyraadkaasi dabiiciga ee carradeeda ka soo maaxa. sharciga caalamiguna uu ogol yahay. haddaba muddo ka badan 10 sano ayaa laga joogaa xilliga ay Itoobiya go'aansatay kuna dhaqaaqday dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya. waxaana jirta in ujeedada biyo xidheenkaasi ay Itoobiya u dhisaysa ay tahay si ay u soo saarto xoogga korontada oo door weyn ka ciyaari kara kor u qaadida heerka dhaqaalaha dalka. waxaana jirta in dhismaha biyo xidheenkaasi uu heer wanaagsan marayo. wareeggii koowaad ee buuxinta biyahana lagu guulaystay oo si guul leh loo gabagabeeyey. waxaa iyadu xusid mudan in wadamada hoose ee biyaha webiga Abay uu maro ee isticmaala ee Suudaan iyo Masar ay Itoobiya marar badan hadal ahaan iyo ficil ahaanba ugu xaqiijisay in dhismaha biyo xidheenkeedu uu saameyn ku yeelan karaynin helitaankooda iyo isticmaalkooda biyaha webiga Niil ama Abay. dadaal xilliyo kala duwan loo galay oo la sameeyey sidii ay saddexda wadan heshiis kama dambaysa uga gaari lahayn arrinta ku saabsan webigaasi Abay ama dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya waxay ku burbureen diidmo aanan sababaysnayn oo ka yimid dhinaca labadaasi wadan gaar ahaana dhinaca dalkaasi Masar. dowladda Masar iyo kuwa siyaasadda falanqeeya waxaa ka muuqata inay farxad ku soo dhaweynayaan dhacdooyin kasta oo si dhaba uga jira ama uga dhaca ama been abuura haddii ay dhab yihiinna aad loo buunbuuniyey isdhahaan fursad wanaagsan ayay idiin noqon kartaa. عربي نصهم مسلمين. المنطقة دي أصلا كانت جزء من مقاطعة أو جزء من ولاية النيل الأزرق السودانية وتم التنازل عنها. falanqeeye siyaasadeed oo caan ah oo dalkaasi Masar ayaa dhawaan soo jeediyey hadallo lala yaabo oo qayb ka dadaalka ay ugu jiraan xumaanta Itoobiya ay raadinayaan. shakhsigaasi wuxuu carabta ugu baaqay inay gargaaraan halgan uu sheegay inay shacabka gumusiyiinta ugu jiraan inay ugu biiraan dalkaasi Suudaan. waxaana jirta in diidmo maalmo ka hor ka dhacday deegaanka Axmaarada ay siyaasiyiinta Masar uga hadlayaan ay sheegayaan sidii arrin iyaga u wanaagsan oo Masar u baahan tahay. waxayna leeyihiin waa tallaabadii ugu dambeysay ee ay ku wiiqmi lahayd dowladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. waxaa ninkaasi uu sheegay in deegaanka Benishangul Gumus uu yahay dhul ay Suudaan leedahay oo ay ku nool yihiin shacab ay tiradoodu gaarayso 5 milyan oo qof. wuxuuna sheegay in shacabkaasi uu kala badh carab yahay. wuxuu sheegay dhulkaasi waa dhul carabta Suudaan ay leeyihiin, laakiin buu yidhi waxaa wakhtigan la joogo xabashida iyo oromada oo iskaashaday ayaa dhulkaasi weerar ku qaaday. deegaanka Benishangul buu yidhi ninkaasi oromada iyo Axmaarada ayaa sheegaya in dhulkaasi ayaga kaliya leeyihiin oo weerar ku qaaday carabta dhulkaasi ku nool. waxa uu ninkaasi sheegay in dhulkaasi uu yahay mid carrasan leh oo hoostiisana uu dahab ka buuxo oo dhinaca dhulka xiriirka ama dalka Suudaan lagu geli karo. wuxuuna sheegay in dhulkaasi uu yahay masha uu ka socdo dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya. waana dhulkaasi Benishangul buu yidhi oo ay leedahay Suudaan. waxaana loo baahan yahay buu yidhi in si la mid ah sida Suudaanta koonfureed loo xoreeyo. wuxuu yidhi haddii fursadan wanaagsan laga faa'iidaysan waayo in la waayo fursad kaloo wanaagsan oo tan la mid ah. daawadayaal waxaa jirta in dowladda Jamhuuriyadda
dimuqraadiga ee federaalka Itoobiya iyo siyaasiyiin kala duwan gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xilliyo kala duwan sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer Itoobiya uu muujiyo midnimo uu kaga gudbi karo shirqool kasta iyo xumaan kasta oo cadowgu la doonayo. Haddaba waxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaasa si wanaagsan loo fahmo oo mar walba sidii hore si ka wanaagsan midnimada loo xoojiyo. warka galabnimo ee telefishinka qaranka ayaa daawanaysaan haatan jigjiga. madaxa xafiiska maareynta masiibooyinka iyo kahortagga khataraha masiibooyinka ayaa waxa uu kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool degmooyinka Daratoole iyo Lehel Yacoob ee gobolka Doolo. Dr. Cabdifataax Sheekh Bixi ayaa waxa uu bulshada deegaankaasi ku dhaqan u ka dhageystay tabashooyinka ay ka qabaan adeegyada dhinaca horumarka, waxaana wada tashiga uu la qaatay bulshada xoogga lagu saaray xaaladda abaarta ee saameynta ku yeelatay nolosha dadka iyo waliba xoolaha deegaankaasi. kulamada kala duwan ee la yeelanayna waxay ahayd roobkii oo daahay, dadkii oo biyo yaraan ay ka dhacday, dunyadii iyo ma garanaysaa dadkiiba dhibaato la soo diristay in xaaladooda ogaano. dad badan oo waxaa jira barakacyaal ah oo hadda ka hor abaaro dhacay xoolahoodu ay ku baabeen, kuwa laftigooda iyagoo awal horeba nuglaa raashin caawimaad heli jireen oo ka daahay. waxaasoo dhan inaan bal xaaladooda nololeed inaan eegno ay ahayd kormeerka ujeedadiisa ugu muhiimsan. alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale. biyihiina biyo dhaan badan oo dawladdu samaysay baa jiray, inkastoo baahida iyo awooddu ay kala badnaayeen oo baahidu aad u badnayd. nabadgelyada waxyaabaha kale in bulshada kala hadlaynay bay ahayd. degmooyin badan baan tagnay, intaan iskala qaybinay. isku dhacyo yaryar oo qabaa'il oo jiray oo hadda ka hor la xalliyey in ayna waxba ka soo noqonin, inaan xaqiijinno dadka walaaltinimada iyo midnimada iyo isjacaylka inaan adkayno. xuduudaha laftigooda gobolka Doolo maadaama uu xad dheer la leeyahay Soomaaliya, dadku waa isku mid weey, labada dhinacba waa dad walaalo ah. waa la isu gudbi, laakiin ammaan la isu siiyo oo ganacsiga iyo socotada caadiga ah iyo nabadgelyo lagu wada noolaado. waxaa dhawarkanaga ka socda shaqo dhismihii anteenada. magaaladan waa xaruntii degmada, iyada iyo meelo badan oo Doolo ka mid ah iyo deegaanka meelo kale oo ka mid ah ma laha anteeno. ilaa 30 goobood ay ahayd in la bilaabo, 12 ka mid ah oo soo hormaray bay ku jirtay. marka waa shaqooyinkii uu xisbigu soo qabtay, uu jecel yahay iyaga iyo wax ka badan ba inuu sii wado haddii Ilaahay yiraahdo. dhinaca kalena hadda bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi waxa ay madaxafiiseedka ka hortagga iyo maareynta khataraha masiibooyinka ay kala hadleen arrimaha ku aadan dhinaca waxbarashada iyo waliba adeegga korontada. isla halkan waxaa ka socda mashaariic kala waaweyn. dugsigii sare waxaan filayaa waa gabagabo, qalabkiisii haddaan ku soo dhaafnay dhexda, qalabayntiisii kuraastii wixii. magaalada waxay nasiib u heshay sidoo kale laydhkii cadceedda laga dhalinayay, maadaama aad uga soo fog tahay laydhka biyaha laga dhaliyo ee Itoobiya badankeeda isticmaasho ee 24 saac. waxaa jira meelo solarka la gaarsiinayay deegaanka oo qaar badan ay dib ka bilaaban doonaan oo qorshaha lagu daray. Daratoole kuwii hore nasiibka hore bay ka mid ahayd. mashaariic badan oo degmadu ay qabatay baa jira. marka runtii xisbiga barwaaqo ee Soomaalidu wax qabad badan buu degmadan ka qabtay. Doolana waxyaabo badan oo ka qabtay baa jira, haba u badnaadaan mashaariicda laga fuliyay magaalada caasimadda ee Wardheer. wararka aanu ka helayno deegaanka Amxaaraduna waxa ay sheegayaan in tirada dadka laga helayo viruska corona ee deegaankaasi ay tahay mid aad u sare ugu sii kacaysa. wariyahayaga Cabdulaahi Raabi ayaa warbixintan soo socota ka diyaariyay. macadka caafimaadka dadweynaha deegaanka Axmaarada ayaa sheegay in uu COVID-19 si xawl dheer loogu fidayo deegaanka Axmaarada. haddaba magaalada Debretaaboor ee ka tirsan deegaanka Axmaarada ayaa lagu qabtay masrax wada tashi oo ka soo qayb galeen bahawadaagta ku hawlan la dagaalanka faafitaanka COVID-19. kulankaas oo kaga wada xaajoonayaan sidii dadaalkooda looga dhigi lahaa mid iswaafaqsan oo habaysan oo isku duuban. mudane Tasfaun Taadege oo ah khabiir sare oo ka tirsan macadkaasi caafimaadka dadweynaha deegaanka Axmaarada ayaa sheegay in waqti xaadirkan baahitaanka virus
fayraska corona ee sababa covid-19 ee deegaanka axmaarada uu taagan yahay heer aad looga walbahaaro wuxuuna sheegay in tirada dhimashada covid-19 ka timaada ee deegaanka axmaarada marka celceliskeeda la eego inuu ka badan yahay celceliska dhimashada covid-19 ee heer qaran wuxuuna sheegay ilaa wakhtigan la joogo in tirada dadka covid-19 u dhintay deegaanka axmaarada ay 10 kun gaadhay isagoo tiradaasi sii faahfaahinaya waxa uu sheegay in celceliska kunka qof ee covid-19 ku dhacay deegaanka axmaarada 22 ka mid ah ay cudurkaasi u dhimanayaan masha heer qaran kunka qof ee covid-19 ku dhaco in 14 qof ay cudurkaasi u dhimanayaan mudane asaamare samuel oo isagoo ah maareeyaha isbitaalka guud ee specialistka ee Ebretabor ayaa sheegay in waqti xaadirkan sariiraha isbitaalka ay buuxiyeen bukaanada covid-19 oo marka ay qasab noqotay in bukaanadaasi berendaha la dhigo wuxuuna sheegay in dhibaatada kale cudurkaasi ka imanaysa ay tahay dhakhaatiirta farsamayaqaanada shaybaadhka iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka naftirkooda oo cudurkaasi ku dhacayo habeennimadii xalayna waxaa weerar lagu qaaday qaar ka mid ah baabuurta xamuulka qaada ee u kala gooshta magaalada Addis Ababa iyo Gojaam weerarkaasi ayaa la sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay Cabdilaahi Raabiye mar kale ETV ayaa xaqiijisay in xalay markay saacadu ahayd 4:00 fiidnimo baabuur tararka nooca loo yaqaan Isuzu oo magaalada Addis Ababa ka baxay oo u socday dhinaca Gojaam weerar loo geystay ay mashaasi ka dhacday dhimashada dhaawac iyo bulbul hantida soo gaadhay haddaba ETV oo khadka telefoonka kula hadashay madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha ee gobolka waqooyiga Shaw ee deegaanka Oromia mudane Kanasi Chala ayaa isagu mas'uulkaasi u xaqiijiyay in weerarkaasi uu jiray oo waqti xaadirkan dowladda oo hawlgelisay xogaga ammaanka dabagal loogu jiro sidii loo soo qabqaban lahaa loona ogaan lahaa cidda weerarkaasi geysatay mas'uulkaasi waxa uu sheegay in xalay 4:00 fiidnimo in baabuurtaasi nooca Isuzuga weerarkaasi lagu qaaday iyagoo maraya meel u dhaxaysa degmooyinka Yuna iyo Dagam oo ka soo baxay magaalada Addis Ababa una socday Gojaam deegaanka axmaarada wuxuuna sheegay in cidda weerarkaasi geysatay oo weli la garanaynin oo mugdiga kaashanaya inay weerarkaasi geysteen oo sida uu xafiisku maqlay ilaa 5 qof ay waxyeello soo gaadhay 5 qof oo rasaas ay ku dhaceen wuxuuna sheegay in 2 ka mid ah baabuurta Isuzuga ee weerarka lagu qaaday ay isku dhaceen mid uu gadoomay kuwa kalena ay waxyeellooyin kale soo gaadheen waxa uu sheegay mas'uulku in arrintaasi warbixinta ay soo gaadhay xafiiska xiriirka arrimaha dadweynaha ee gobolka waqooyiga Shaw ee deegaankaasi Oromia ee isagu mas'uulka uu ka yahay oo markaa uu maqlay in 5taas qof ay waxyeelladu soo gaadhay burbur hantiyeedna uu masho ka dhacay dhimasho iyo dhaawacna ay jiraan wuxuuna sheegay in baaritaan xooggan uu socdo waqti xaadirkan kaasoo ay samaynayaan xogaga ammaanka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda ee arrinta qusayso wuxuuna mas'uulku sidaasi ku xaqiijiyay in arrintaasi ama dhacdadaasi ay xalay dhacday ugu dambeyntiina wararka aan idinka hayno dhinaca caalamka qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 29 milyan oo qof oo ku nool gobolka saaxil ee qaaradda tan Afrika ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo gobolka saaxil ayaa waxa uu yahay mid ay ka kooban yihiin ama se ay qayb ka yihiin wadamada Burkina Faso waqooyiga Cameroon wadanka Chad Mali Niger iyo sidoo kale waqooyiga dalka Nigeria suduwaha qaramada midoobay ee hadaba halkaasi u qaabilsan oo Xavier Cret lagu magacaabo ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatada amni darro ee halkaasi ka jirta ay xaaladda tahay mid aad uga sii dartay hay-adda aan dawliga ahayn ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka Norway waxa ay sheegtay in 3 ilaa 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay barakaceen waxaana jirta dugsiyo badan oo albaabada loo laabay ayaa ay tiri hay-adda dalka Norway arrimaha qaxootiga u qaabilsan ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqday in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah warkiina waa naga intaas daawadayaal inta aan soo gabagabayn qodobada ugu doorka room wasaaradda nabadda ee dalkan Itoobiya ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayay arrimaha federaalismka qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in 29 milyan oo qof oo ku nool gobolka saaxil ee Afrika ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo oo degdeg warkii galabnimo waa naga intaas aniga iyo asxaabta kale ee kala qayb qaatay waxaan ku dhaafinaa